السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا أصحابي أنت هلكا كجرتو إن waxaan bilaabaynaa xalqadeena koowaad caawa insha Allah oon kaga hadli doono xalqadani gudaheeda waxaan kaga hadli doonaa waxa loo yaqaano circadian rhythmka. Waa maxay circadian rhythmka? Sidoo uu maaragtay u saameeyaa hurdadaada? Marka haddaan ka bilaabno waa maxay circadian rhythmka? Circadian rhythmka sidiisbu waa saacadda dabiiciga ah ee jirka loo yaqaano biological clock. saacadani waxay shaqeysaa 24 saacadood gudahood bay shaqeynaysaa. Marka waxa ay xakameynayso saacadani waxa waaye hurdada iyo soo jeedka qofka bini'aadanka ay xakameynaysaa. Ilaahay ka soko waa wax maaragtay circadian rhythm loo yaqaano oo xakameynaya inaad soo jeedid iyo inaad maaragtay aad hurdid. sidoo kale waxay xakameynaysaa saacadani circadian rhythmka loo yaqaano soo deynta hormoonada kala duwan ee melatoninka, gaar ahaan melatoninka iyo cortisolka. saacadani sidoo kale waxay xakameynaysaa heerkulka jirka. sidoo kale waxay xakameynaysaa tamarta iyo feejignaanta maskaxda. saacadan waxaa si weyn u hago marka iftiinka qoraxda iyo mugdiga. waxaa hago oo saacadani ka qayb qaata hagash in ay maaragtay ay shaqeyso waa xilliga iftiinka uu jiro iyo xilliga mugdiga uu jiro ayaa maaragtay hago. marka waxaan isweydiinaynaa marka su'aasha inaan isweydiino laga rabo waxa waaye saacadani sidee u shaqeysaa loo yaqaano circadian rhythmkani siduu u shaqeeyaa? subaxii markii la gaaro jirkaaga mise iftiinka qoraxda ay soo baxdo mise subaxii iftiinka markuu soo baxo jirkaaga wuxuu joojinayaa hormoonka u xilsaaran hurdada loo yaqaano melatoninka. kani wuxuu ku keenayaa marka inaad soo kacdid. Ilaahay ka soko wuxuu ku keenayaa inaad soo kacdid. awoodda Alle ka soko wuxuu ku keenayaa kani inaad soo kacdid. fiidka markii la gaaro marka oo maqribadii la gaaro oo mugdigu uu soo galaayo sidoo kale jirkaaga waxaa ku kordhaya maskaxdaada waxaa ku kordhaya hormoonkii oo melatoninka ahaa. tanin waxay ku keenaysaa in aad xilligaaga aad seexanaysay la galay oo maaragtay la gaaray oo hurdo ay ku keento. waxaa jira marka qanjir ku yaala maskaxda loo yaqaano hypothalamuska ayaa si toos ah marka u aqoonsada iftiinka ka imaanayo indhahaaga. saameynta marka uu ku lahaanayo dhanka hurdada circadian rhythmka. saacadani saameynta ay ku leedahay jirka ee hurdadaada. haddii circadian rhythmki marka uu isku dheelitiran yahay uu saxan yahay oo waxba uu ka qaldanin si fudud ayaad u seexanaysaa. hurdo oo waqti dheer ayaad helaysaa. subaxdina adigoo maaragtay firfircoon ayaad soo toosaysaa oo soo kicisa. dhanka kale circadian rhythmkani saacadani haddii kaa qaldan tahay maxaa kugu soo ziyaadaya kugu soo kordhaya? hurdadii ayaa kugu adkaanaysa inaad seexatid. waad soo jeedaysaa habeenkii oo idil maadaama hurdadii ay kaa qaldan tahay. calaamadaha kale oo aad isku arkaysid aad dareemaysid waqtiga qalqal uu kaaga jiro circadian rhythmka waxaa waaye daal, madax wareer iyo feejignaan xumo, anxiety-ga, xanaaq, buuq ayaad dareemaysaa adigoo idil. maxaa qalqalsiiyo marka circadian rhythmkaaga? maxaa qalqal u keenayo? waa mawduuca kale oo inaan isweydiino loo baahan yahay. waxyaalaha ka qayb qaato in maaragtay circadian rhythmkaaga uu qaldamo koow waxaa waaye isticmaalka telefoonada mise electronic oo idil, gaar ahaan xilliga habeenkii. shaashadani indhaha lagu haayo waxa ay ka qaldaysaa. shaashadani waxaa kasoo baxa wax loo yaqaano blue light. blue light-kani indhahaaga uma fiicno habeenkii. wuxuu qaldayaa circadian rhythmkaaga. saacadaada biological clock-gaaga buu qaldaya. biological clock-gaaga hadday qaldanto melatoninkaaga ayaa yaraanaya, ma soo sii daaya ismaya habeenkii. block baa ku dhacaya. block markuu ku dhaco maxaa ku imaanaya adiga inaad hurdadii aad iska waysid, hurdadii aad seegtid. adigoo maaragtay habeenkii arrimaha kale oo qalqal u keeni kara circadian rhythmka waxaa waaye in aad seexashadii maaragtay iyo habeenkii inaad waqti badan aad soo toostid iyo waqtigii isbeddelaya in maaragtay isagana uu ku keeno in uu taasi uu ka qayb qaato. sidoo kale dadka habeenkii shaqeeyo night shift-ka ku jiro ayagana
tanin way la xiriiraysaa way la soo xiriiraysaa. Arrimaha kale waxaa waaye kafeega mise cuntada culus habeenkii waqtiga dambe aad qaadanaysid circadian rhythmkaaga wuu qaldaya. waxaa loo yaqaano jet lag ayagana way qaldaan. jet lag waxaa waaye dadka safarada kala duwan waqti kala duwan kala galaayo oo maaragtay dad adigoo maalin inta aad ka safartid diyaarad aad raacdid meel kaloo habeen aad tagtid jet laggaas wuu ku imaanaa, mise meel habeen aad kasoo tagtid meel maalin aad imaadid waqti kala duwan haddaad safartid waad isku arkaysaa circadian rhythmkaaga inuu qaldo. dhanka kale waxaa kaloo ku keeni karaa circadian rhythmkaaga hadduu qaldamo gaar adiga ahaan muxuu jirkaaga ku yeelan karaa. marka qalqalkani oo circadian rhythmka waxa uu ku keeni karo waxaa waa hurdo la-aan inay kugu dhacdo, insomniaga loo yaqaano, cayil badan inuu ku keeno circadian rhythmkaaga hadduu qaldaya, maadaama cortisolki uu jirkaaga uu ku badan yahay iyo growth hormoneki iyo wixii maaragtay inay soo qaldamaan. sidoo kale diabetes inuu kugu dhaco, macaanka cudurka macaanka inuu kugu dhaco, walwal iyo niyad jab iyo anxiety iyo depression iyo badan baa kugu soo ziyaadayo markani circadian rhythmkaaga uu qaldan yahay. hoos u dhac dhanka difaaca jirka immunitygaagana inuu low noqdo ayaa kugu dhici karo sidoo kale, oo dhibaato ka imaanayso dhanka circadian rhythmka oo qaldamay ayaa waxaanu idil ku keenaya. sideed u hagaajin kartaa markaad u sixi kartaa circadian rhythmkaaga? waa inaad heshid hurdo kugu filan, waqti wanaagsan, waqti haboon inaad seexatid. subax hore markaad soo kacdid waa inaad iftiinkaad ku baxdid, indhahaad soo kala qaadid si uu maaragtay hormoonkaaga u yaraado. subax hore melatoninka uu kaaga yaraado. waa inaad joojisid mise aad yaraysid shaashadani aad habeenkii aad fiirinaysid, telefonkani habeenkii aad fiirinaysid 1 saac mise 2 saacadood ka hor intaad hurdada isu diyaarinin. ka fogow maaragtay cunooyinka culus, difinta ay ku badan tahay, saliid ay ku badan tahay, junk foodka habeenkii xilli dambo. ka fogow sharaabka, kafeega, qaxwada, kulligood ka wada fogow, cappuccinoda, lateega, kulli ka wada fogow. habeenkii ha isticmaalin maadaama waxaa ku jiro kafee badan. samee jadwal oo maaragtay in aad hurdadaadii aad ku saxdid, ayadana ku dadaal inaad samaysatid. asxaabi waa mahadsantiin, waa inoo caaw dambo insha allah. bye bye.